بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصوماليين ميل وبد جوجتان waxaan ilaahay maalin wanaagsan maalinta hadii wacnaato xilliga ku jirtaan hadii wacnaado walaalayaal waxaan rabaa inaan ka hadlo qodob xasaasi ah kaasoo ku saabsan xasuuq habeen hore ka dhacay tuulada Mooyinow ee hoos tagta degmada Toorotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose. walaalayaal sida jaraa'idka iyo ka akhrisateen ka dhageysateen idaacadaha maxalliga ahba waxaa ninka lagu magacaabo General Odwa iyo ninka lagu magacaabo Ibrahim Najax u naqaano hogaamiyaha cashuur ururinta ee gobolka Shabeellaha Hoose u qaabilsan maamulka Koonfur Galbeed waxay u dhigaan in ayagu hambalyeynaayo ciidamada qaranka u hambalyeynaayo in meeshaas lagu xasuuqay shabaab. arrinkaas ayaan rabnaa inaan jawaab waafi ah ka bixino sida wax u dhacayna aan ummadda u sharaxno annagoo xaqaa'iqda ka hadlayno waayo annagu waxaan nahay dad waaqici ah oo goob joogayaal ah dadka gudaha jooga la socda dadkii waxaan nahay qoyskoodii la xasuuqeen nahay waxaan nahay dadkii xogaal ku ahaa. waxaa dhacday in habeen hore 3 nin oo ciidamada Mareykanka ay ku soo raad joogeen ay 3 mooto soo qaateen ay soo galeen tuulada Mooyinow xilli aan ayagoo la ogeyn masaajidka ugu soo galeen dad tukanayay cibaadeysanayay baytullaahi ku jiray halkaasna iyagoo aan loo kala soocin lagu wada xasuuqay. dhowr iyo 10 rayid ah ayaa ku dhimatay oo ganacsato leh oo dad akhyaar oo iska jooga dalka kamid ahaayeen shacab ah. 3 nin oo al-shabaab waa la dilay waa run 3 nin la dilay hal la sheego inta shacabka ahna hal la qariyo arrinkaas asaga waan dhibsanay markii koowaad ma ahan markii labaad ma ahan mar saddexaad ma ahan ciidamada Mareykanka iyo kuwa AMISOM kuwa Kenya iyo kuwa xabashadaba mar walba waxyaalo ayaa naga soo gaarto hawlgallada ay fulinayaan oo waliba markaan ka hadalna afkana la goosanayo leeyahay ma argagixisad la safantahay ma argagixisad u hadlaysaa oo haddana bilooyin kadib ama sanad kadib aad arkayso Mareykanka iyo qiranayo leh hawlgalkii midabla aan ka fulinay waxaa ku dhintay xoolo intaas ah shacab intaas ah oo qiranayo dib u ka qiranayo isagoo magdhow aan ka bixinaynin awood isbidaayo cid u hadashaa ma jirto shacabkaas innaga xilbaan u hadlayno annaga xilbaan u hadlayno xaqiiqadan ka hadlayno haddii ay nimankii meesha joogay xilligooda xilka ka sii dhamaanayay aysan hadli karin annaga xor u hadlayno oo aan cabsanin ilaahay mooyaan cid kale ka cabsanaynin waan taageersanaa waan soo dhaweynaynaa in lala dagaalamo nimanka argagixisada ah wax laga qabto amniga dalka waan taageersanaa waan soo dhaweynaynaa laakiin hanaanka iyo habka loo maraayo mar walba shacabka dhibaato ka soo gaarayso midaan ku faraxsanahay ma aha. jubbooyinka ay ka dhacday shabeellooyinka ka dhacda banaadir ka dhacda kuma faraxsanin waan ka xunnahay xumaantaan ka xunnahayna ma aha midaan qarsanayno waxa waliba dawladda Mareykanka iyo AMISOM iyo cid walba taageerta meesha caalamka waxaan leenahay magdhow in laga bixiyaa dadka rayidka mar walba dhibaato ka soo gaarayso ee dawladdan taagta daran idinka taageersantihiin ay ka aamusan tahay waxaan leenahay waa in magdhow degdeg ah laga bixiyaa waa in tallaabo degdeg ah laga qaado arrinkaas. haddaba maxaa u sababa arrinkaas maxaase xal ah maxaase sababa haddaan niraahno taxliilino casharkan maxaan ka baran karnaa haddaan qodobayno waxaan leenahay lambar 1 wada shaqayn la'aan oo ka jirta ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo kuwa caawiya hawlgalka amniga AMISOM hadday yihiin iyo hadday yihiin Mareykanka haduu yahay iska warhayaan waxaan iska warhaynin oo u sabab ah sirdoonka qaranka iyo maamulka iyo shacabka deegaanka ayaan iska warqabin. waxaa u sababa maamulka ama xilka oo loo dhiibo dad aan ehel u ahayn oo aan deegaankan aqoon u lahayn maamulkan aqoon u lahayn kartina aan u lahayn xirfadiisana aan ahayn maamul in mar walba kursiga iska iibsado oo magac beeleed ku yimaado oo dhaqaale ku bixiyo aakhirkan la eersado. waxaa u sababa sirdoonka qaranka oo mar walba loo dhiibo dad rayid ah war hay'adda rayid looguma talagelin qof rayid ah sidee loogu dhiibay hay'ad qaran oo intelligence ah oo sirdoon ah bal dawladaha dariska ah iyo kuwa caalamka fiiriya dadka u magacaaban waa jeneraalo waa saraakiil waa dad waay arag ah ruug cadaayaal ah annaguse waxaa noo magacaaban dad dad waxaa noo magacaaban rayid ah mar walba mid macallin iskuul ahaa iyo mid hay'ad soo joogi jiray iyo mid wariye ahaa iyo waxaan loo baahnayn baa meesha taagan markaas xilkii aysan gudan karin oo ku fashilmayaan. waxaan leenahay in wax laga qabto waa in wax laga qabto oo wax qabad muuqda laga qabto
arrinkan raaligareyn degdega laga bixiyo jenaraal Odawa iyo ninka Ibrahim Aadan Cali Ibrahim Najax ninka ku magacaaban ee la yiraahdo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha sheegta ee annagu u naqaano gudoomiyaha cashar ururiyaha aan u naqaano waa inay raaligareyn degdega ka bixiyaan ay magdhowna ka bixiyaan dadkii rayidka meesha lagu laayay oo qoyskeena ah oo qaraabadeena ah oo Soomaaliyeed kale ay ku jirto oo la wada yaqaano oo tacsiimanta u taalo حتى وتعسين ويدن إنا لله وإنا إليه راجعون صبر الله ذنك سوي حتى أقول ويدن مركي كواد معها مر لبعض معها مر سدحات معها قبل كشوي الله سبحانه كان نقضي ميل أسكب بيك سوي حر ولا قسم يستو وحن كهلا يبرد حاسة قنت هذا كل عاية راتك أيام دون المستقبل ما دام أنا صبرت علم ديجانك محاها أنا أقول أولي هاي إن صنت أي ريب دون المستقبل ركوب بيد مرة إن مستقبلك أي سامين ويلان دون تدخلها مريكانك maraykanka waxaan lana gantaaladaas looma baahnaba inaad shabaab u adeegsato shabaab wax ka sahlan oo maanta la dagaalankiisa ka sahlan ma lahan hase yeeshee dawgii ugu wanaagsanaa dariiqii ugu wanaagsanaa baan lahaynin waxaad maagantiin ma naqaano al-shabaabta la dagaalamayo al-shabaab soo hoggaankeedii ugu sarreeyay kuwan ma afilla Soomaaliya jooga madaxweynaha dhinacaha ka fadhiyo waa maxay noo sheegaysaan ruwaayadan la ma weelin inta la sadaayo afartan wiil ee meesha gaajada ku dishay qoryaha haysato annaga ka soo ururin karno innaga ka soo qaadi karno annaga ka soo qaban karno ka soo qaadi karno laakiin kii in hebel ahna in la dilacsiyo sargaal laga dhigo ka muxuu umadaha kalena muxuu ahaa wada arkaysa shabaab la soo qabtay uu leeyahay beelaha kale noqdaa beelaha kale ayuu noqdaa oo masaakiinta ah waxba aan galabsanin ayaa lagu shaabadeeyaa laakiin dadka reer hebelka ka dhashay waa la dilacsiyaaba shabaabkooda waa laga helaaba waa dad dilacsiisan oo dhaqaale iyo la siiyo marka waxaan inta naga deeysan Mareykanoo haddaad u jeedaan muxuu la dagaalanka argagixisada daqiiqadan kuma qaadanayso sidee macquul ku noqotay in satellite-ka Mareykanka iyo Qatar iyo Imaaraadka la isticmaalo telefoon cellular ay wataan oo heer caalami ay wataan wax lagu qarxiyo aan la ogaanin haddana waxyaabo aan maankeena gelinin weeye waxaas waa ognahay Mareykanka hadii ay ka dhab tahay soo afjaritaanka al-shabaab amisom hadii ay ka dhab tahay soo afjaritaanka al-shabaab hadii maxaa ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay ka dhab tahay waa la soo afjari karaa laakiin barnaamijkan waa barnaamij la isla ogyahay oo lagu seeta dheereysanayo qorshe siyaasadeed fog ayaa laga leeyahay waxa weeyaan kuwan ayagana diinta sheeganaya ayagana musiibadan lagu soo saliday iyaguna waxay dalka ku soo hogaaminayaan cadow waxay diinta u horseedaan mushkilad kale waxay deegaanka u horseedaan caqabad kale dhibaato labada dhinac naga haysato dhan walba dhibaato ummadda Soomaaliyeed ka haysato ummadda Soomaaliyeed inay fahmaan waxa loo diriirsan yahay waxa loo waxyeeleynayo waxa loo kala qabqabayo waa boqolkiiba boqol inay muslim yihiin waxa kaliya oo loo dagaalamo ma naqow minhum illa ayunu billahi al-aziz al-hamid inta aan baa loo dagaalamaya mana fahamsana mid magac diina sheegto la soo adeegsado mid magac dawladda sheegto la soo adeegsado oo shuruuc oo gaalo oo khaniisin iyo zinada xalaalina in la soo dhiibo oo muxuu ahaa mahane wax kale oo khayr keena aysan la ogolaanayn wadanka waa loo jeedaa nin walba oo ogtiin waa naga cilmi badantii waa naga aqoon badantii laakiin kuma dhiiranaysaan in tirada munkarkaas la joojiyo waxaan leenahay aan ku soo gabagabeynaa hadalkii ku soo xiraya wixii mooyinoo ka dhacay wixii ka dhacay Qoryooley wixii ka dhacay Awdheegle wixii ka dhacay Toorotoro wixii ka dhacay maxaa deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose ka dhacay ee duqeymaha ee maxaa ciidan qalabka ay qaadaan mar walba waxyaalo ka soo gaarta shacab tii ugu dambeysay mooyinoo habeen hore ayaa ugu dambeysay waxaan leenahay wixii ka dhacay halkaas oo in magdhow laga bixiyaa waa in jawaab degdeg ah waafi aan ku caafimaad karnaa nala ka siiyaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.